Japan waa wadan jasiiro ka samaysan oo ku yaala badweynta Pacific qaaradda Aasiya waxayna ka qayb yihiin xulal ku safray Ruushka ee koobka aduunka ma lahanaaneys caalami ah balse waxay caan ku yihiin hal ku dhig ay ugu yeeraan dadyowga Japan waxaana la yiraahdaa Samurai Blue tababaraha hogaaminaya waa Akira Nishino oo u dhashay isla wadanka Japan kabtanka kooxda waa Makoto Hazeba kaasoo ah difaac dhexe kana ciyaaro horyaalka Germany xidiga ugu safashada badan waa Yasuhito Endo waxaana uu saftay 152 jeer xidiga ugu goolasha badan waa laacibka lagu magacaabo Kunishingi Kamamoto ahna siyaasi iminka waxaana uu dhaliyay 80 gool labiska ay xirtaan xulka Japan waa funaanad buluug buumo buluug sigsaan buluug ah waxaana ku jira cadaan yar waxayna ka tarjumaysaa naanaysta xulka oo ah weeraryahanada buluuga Japan waxay FIFA ku soo biirtay sanadii 1920 markii ugu horeysay ay qiimeynta FIFA ka galeen kaalinta 62 December 1992 heerkii ugu sareysana waxay galeen kaalinta 9 February 1998 hadda waxay ku jiraan kaalinta 6aad 12 Abriil 2018 qiimeyn la sameeyay kulankii ugu horeeyay oo heer caalami ay la ciyaareen xulka Japan xulka China ciyaar ku dhamaatay 5-0 ciyaartaas oo ka dhacday caasimadda Japan ee Tokyo 9 May 1917 guushii ugu weyneed ay ka gaareen Japan xulka Philippines ciyaar ku dhamaatay 15 gool iyo eber sanadii 1967 gooldaradii ugu xumeyd ay ka soo gaartay xulka Japan xulka isla Philippines ciyaar ku dhamaatay 15 gool iyo 2 oo ay ku adkaadeen xulka Philippines ciyaar ka dhacday magaalada Tokyo 10 May 1917 koobka aduunka ay ka soo muuqdeen 6 jeer markii ugu horeysay ayna ka soo muuqdeen sanadii 1998 waxayna gaareen wareegga 16 sanadii 2000 iyo 2010 Asian Cup ay ka soo muuqdeen 8 jeer waxaana ugu horeysay sanadii 1988 waxayna ku guuleysteen sanadii 1992 2000 2004 iyo 2011 Copa America ay ka soo muuqdeen markii ugu horeysay sanadii 1999 heerka guruubyada ayay gaareen isla sanadka ee 1999 Confederation Cup ay ka qayb galeen 5 jeer oo ugu horeysay 1995 wareegga afardhamaadka ayay gaareen sanadii 2001 laacibka la wada eegaya xulka Japan waa Keisuke Honda kaasoo u ciyaara kooxda reer Mexico ee Pachuca waana laacib hore u soo maray kooxda AC Milan waxaana uu dhashay 13 June 1986 da'diisu waa 31 sano dhirirkiisu waa 1.82 mitir waxa uu ka ciyaaraa boosaska weerar qad dhexe ah garab iyo weerar toos ah waxaana uu ku soo biiray AC Milan sanadii 2014 waxaana uu ka tagay sanadii 2017 AC Milan wuxuu u saftay 81 jeer waxaana uu dhaliyay 9 gool kaliya xulkan waxay isku group yihiin Colombia, Senegal, Poland Keisuke Honda iyo xulkiisa Japan maxaad u rajaynaysaa aragito